hal dhinac markaad fiirisid siduu u samaysan yahay mishin baa jaray hal dhinac buu isaga egyahay marka dab la saaro wuu sida caagii buu u ololayaa oo waa urayaa haddii inta la kariyo gacanta la isku dhajiyana banooni buu noqonayaa waa dareemi kartaan arazuu baa loo bixiyey aruuskii baa xoogaa la idaafeeyey oo magaciisii si kale loo waxeeyey noocan keliyana ma aha ilaa 6 nooc baa taalla magaalada sida la sheegay 6daa nooc magacyo kala duwan bay wataan dadka marka muslimiinta waxaa looga digayaa guryahoodu yaallaa baalkaa waxaa calaamad u ah kariska ma halaabo haddii la kariyo oo qof aan bariis karin aqoon uu kariyo ma halaabayo furfurkiisu ahaanayo waa sida dadka Soomaalida ay ku jecel yihiin bariis isku dhagdhagaya ma aha waxaa kaloo yaab leh oo bariiskan cajiib ku yahay isaga mid kaligiisa caaga iyo mid isku dhex jira buu qaybsamaa marka lagu qaybsamaa kan oo barxan oo konton caag yahay konton uu bariis yahay iyo kan oo kaligiisa oo caagiya labadaba waxaa ku yaala basmati original waxaa ku yaala India laga sameeyay waxaa yaab leh niman Soomaaliyeed ayaa waxay tageen Taiwan markay tageen ayay waxay yiraahdeen waxaan rabnaa bariis inaan ka baaxmushtarno ninkii ay u tageen aniga adeerkay buu ahaa markay u tageen wuxuu ku yiri ma midka caaga lagu daray baa rabtaan mise bariiska caadiga ah rabtaan markaasay ku yiraahdeen oo Taiwan bay ka jirtaa arintaas markaasuu boqolkii 30 dawladda waa la dagaalantay laakiin aad bay ugu xoog badiyeen walaalayaal bariisyada iyo waxyaalaha cunayna waxa la yiraahdo imtixaanaya waxa kamid ah inadoo diiday waxyaalihii fiicnaa oo galeeydo kale oo caana oo 10 nooc aan u samaysan karno oo ilmaheenu ku korayaan inadoo diinay sareenkii waxyaalaha dad weydiiso sareen ma yaala waxa ku leeyahay Ramadaanba oo Ramadaanka hadii wax fiican uu ahayo la cunayay maxaa diidaya xilliga Ramadaanka ahayn in la karsado waxay ku andacoodeen caruurtaan oo gorayn marka caruurtaan xukunta bisaalaha xukuma caruurta walaalayaal caruur caag la siiyay markaas maxay noqonayaan baalka waxay sheegeen nimanka khubaradaani ilaa 10 sano uu raadkiisu aayar u dilayaa beerka qofka hadduu aayar dilana waxaa ku dhacaya kansar baa ku dhacaya kansarkan siyaadada oo imaanaya waxaa kamid ah waa cuntada iyo xumaatay arrintaan marka insha Allah waxa rabaabeediyana la geeyo meel walba la geeyo dadka muslimiinta ay ka fakaraan waana in insha Allah ay nolol xoog ku qaadno oo aad iyo aad ay ugu dadaalno walaalayaal dadka muslimiinta waxaan ugu digaynaa waa wixii xalaasha ah karsano waa wixii xalaasha ah wixii gaar soo baakaraysay laba galba ku jira walaalayaal labada galba oo ku jirta masaajidka buuqa ka daaya barakallahu fiik Allah amuso laba galba ku jirta kan kaliya waxba sawirana 6 nooc baa jira bariiska